bal nabigu bini aadamku ku dadaalay quwadiisa iyo fikirkiisina wuxuu ku bixiyay siday bashariyadu u islaaxdaa siday bashariyadu ilaahay u garataa dadkana sidee bay ilaahay ugu dhawaadaan dadku sidee bay ilaahay abuuray cilaaqo ula yeeshaan taasuu nabigeenu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam ummadihii hore baa la yidhi mar allii markay ilaahay wax uga baahdaan nebiyaday u sheegan jireen waid istasqaa muusa liqowmihi nebi muuse qoomkiisu markay biyo doonaan nebi muuse yidhahdeen noo weydii ilaahay biyo xawaariyiintu markay doonaan in ilaahay maa'ida u soo dejiyo hal yastadiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min aلsamaa nebi ciisey maraynays yidhahdeen noo weydii ilaahay inuu xedhan noo soo dejiyo reer bani israa'iil markay dooneen in laga bedelo in cuntada samada ka imanaysa looga bedelo oo maaragtaane cunto ay u tabcaan la siiyana nebi muuse ay u sheegeen ay ku yidhaahdeen ilaahay noo weydii in maaragtaane arlada u nooga soo saaro tamaraad iyo mudho walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo asxaabtiisii la jooga oo khaatamulambiyaaya oo imaamulambiyaaya oo ducadiisa la aqbalaayo ayaa ilaahay ku yidhi wa qaala rabbukum adcuunii astajib lakum aniga toos ii weydiisa waxaad doonaysaan ducadiina waa niga aqbalayaa khaasiyaadka ilaahay ummadda nebi maxamed uu siiyey bay ka mid tahay nebigii oo dhex jooga baa lagu yidhi ilaahay iyuu ku yidhi iweydiista waxaad doonaysaan waa ni yeelaya aniguna barya waa niga ajiibayaa dhammaan asxaabta nebigu ducadooda mustajaabay ahayd limaada ilaahay bay barteen xadhig ilaahay bay qabsadeen ilaaha khaaliqa cilaaqa dhaba la yeesheen ducadoodii baa noqotay mustajaaba nebi sulaymaan calayhi salaam qoomkiisa nin ducadiisu ay mustajaabo tahay baa ku jiray oo sila billaahi ilaahay cilaaqa la leh markuu doonay carshigii bilqiisin loo keena maaragtaanay falastiin uu nebi sulaymaan ku yidhi qaala man yaatiinii bicarshihaa qabla an yaatuunii muslimiin qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika cifriit jinka ka mida wuxuu yidhi dhowr saaca ayaan carshiga bilqiisa ku keenay buu yidhi halkaas qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab asif binu barkhaa bay mufasiriintu dhigeen magaciise wuxuu yidhi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka ilgibidhs ayaan carshiga bilqiisa ku keenay buu yidhi ilgibidhs ayaa carshigii bilqiisa min ardi اlyaman ilaa iyo falastiin lagu keenay ilgibidhs walaakiin asxaabtii nebiga radia allaahu canhum imisa khawaariqu اlcaadaat imisaa ka soo daahirtay noloshooda sayidina cumar radia allaahu canhu camar binu caas markuu masar tegey dadka reer masar caado waxay u lahaayeen gabadh bikira oo shaabada qurux u dhalatay labadeeda waalintay raalli geliyaane lacag iyo dahab wax walba siiyaan ayay webiga niil ku tuurayeen deedna webigu markaasuu biyihiisu ziyaadayeen deedna markaasay beeraha ku waraabsanayeen caadadii buu ka joojiyey abaar baa dhacday biyihii baa sii gudhaya reer masar waxay u dhowaadeen dalkaba inay ka baxaan markaa buu joojiyey cumar buu u diray risaalo markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin arrintaasaan ku arkay reer masar waana ka joojiyey biyihiina waa sii gudhayaana maxaan sameeyaa markaasuu cumar ku yidhi asabta waad asiibtay buu ka yidhi waad asiibtay maaragtaanay waad asiibtay laakiin waxaan kuu sheegayaa warqad baan soo dirayaa akhyaartooda iyo cuqaashooda ururiyo webiga niil dul teg warqaddaan webiga ku dul furo ku dul akhri deedna ku tuur buu yidhi wixii ilaahay ka falay meeshaa waad arki doontaa waa cumar qof baa qof warqad u dira taasaa macquulah soo maaha qof baa webi warqad u dira ka warrama waa sila billaah cilaaqa maca allahi bay heleen dadkaas warqaddii buu keenay warqadda waxaa ku qoran min cabdillaahi bay ka socotaa amiira almu'miniina cumar bay ka socotaa ilaa waadi niil bay ku socotaa in kunta tajri min qiblika falaa tajri haddaad awood aad leedahay aad ku soconaysay kuga baanina ha socon hadduu ilaahay ku socodsiinayay weligaana allaha waaxidkee qahaarkaa waxaan weydiisanay inuu ku socodsiiyo warqaddii baa lagu tuuray 16 diraac ayuu kor u kacay baa la yidhi webigii ilaa joogadeena webigiis ma taagin biamri illaahi yajri amarka ilahay buu ku socdaa reer misir cuqaashoodii iyo salaadiintoodii markay arkeen karaamaddaas
fadakhaluu fii diin illaahi afwaaja qisada labaad waxa weeyaan sayidina cumar radia allahu canhu oo madiinata almunawara mambarka ka khudbadaynaya ciidankii saxaabiga saariye uu watay falastiin joogay ee gaaladu dhabarjebinta ay rabeen inay ku sameeyaan halkaasuu cumar kala hadlay kelimaad khudbadda aanan ku jirin ayuu ku soo daruu yidhi yaa saariyatu aljabal wa yaa saariyata aljabal yaa saariya xagga buurta yaa saariya dhinaca buurta iska fiiri khudbaddii markuu ka dhaadhacay asxaabtu way yaabeen yaa amiira almu'miniin maanta maxaa tidhi markaasuu yidhi waxaan idhi hadda inii sheegi maaye ciidanka allaha keenay buu yidhi waad arki doontaan jamaacaddii baa soo noqotay fatxi iyo khaniima in la soo laameen iyo khalaba iyo haziima iyagoo soo guulaystay markaasay axwaashii bayaamiyeen maalin caynkaas annagoo dagaalkii u diyaar garownay oo macrakadii dagaalkii uu noo bilaamay ayaa gaaladu dhabarjebin nagu soo sameeyeen fa samicnaa sawta cumar wasta aljibaal buuro dhexdood annagoo marayna hadalkii cumar baan halkaa ka maqallo bay yidhahdeen hadi cilaaqa maca allah maraat laysa mara aakhirsa siirada asxaabta maraat badahay dul mareen badaha asxaabta rasuulku mashuu cala albixaar haddii nebi ciise muuse calayhi salaam qoomkiisa badda ilaahay u kala jeexay bay culimmadu yidhaahdeen asxaabu muxamed nebi maxamed oo la socon ayaa asxaabta nebiga webiyadaa dul mariyeen fardahoogii wa haadaa ibraahim aladham doonni buu la socday doontii baa kacday mawj baddii baa aad u kacday dadkii doonta la socday oo dhan ayqanuu halaag bay dareemeen fasaaxuu sayxa way qayliyeen rag iyo dumar ubad way qayliyeen hal mar keliya uu sheekhi u hurday hurdadiibuu ka kacay markaasuu arkay doontii oo marna xagga u gadoomaysa dadkii oo dhanna ay geeri u diyaar noqdeen ay wada qaylayaan markaasuu gacmaha cirka u taagay yaa rabbi araytanaa qudrataka fa arinaa cafwaka ilaahow qudraddaadii na tustee dulqaadkaagiina na tus buu yidhi baddii baa ilaahay fadhiisiiyey mar keliya cilaaqa maca allaahi baa walaal muslimka waaryaada muslimka waxay doonaan ha qaataan gaaladu ninka muslimka waxaa ilaahay siiyey quwad caalamka o dhan haddii loo barbardhigo aan u dhigmayn cilaaqa maca allah siirada ku laama siirada akhrista asxaabu rasuul maxay haysteen caalamka marka la eego quwadda ay gaaladu haystaan iyo asxaabtu waxay haystaan asxaabtu waxba ma ahayn laakiin sila billaahi bay lahaayeen cilaaqa maca allah darsigaana ayay ka qaateen khaatamu lambiyaa bay ka qaateen khaatamu lambiyaa ghaswatu daata ariqaac markii asxaabtu ay ka soo laameen waqta duhur geed hadh macaan bay nebiga u dhaafeen iyakuna geeda kaley raadsadeen markaa buu nebigu seeftiisii soo qaaday geedka ayuu sudhay markaasuu nebigu geedkii hoos seexday yaana daba socda nin mushrika oo acraabiya khawrath binu xaaris la dhihi jiray ayaa daba socda reerkiisii baa la soo dhammeeyey dadkiisii baa la soo laayey xoolihiisii baa la soo qaatay imisuu ninkaasi cidho iyo cadhow haya nebiga asxaabta inuu cidlo ku helo wuu u jeedaa nebigoo geedkii hoos hurda keligii asxaabtuna way seexdeen wakhta dahiira weeyaan cadaad waa kulayl geed hadh fiican baa nebiga loo dhaafay seeftiisi nebigu geed ku sudhay uu seexdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii nebiga intuu dul yimiday ayuu seeftii galka ka saaray markaasuu nebigu ku kacay rasuulku markaasuu nebigu indhaha kala qaado waaba ninkii oo dul taaganba markaasuu yidhi alaa takhaafunii miyaanad iga cabsanayn markaasuu nebigu yidhi may kaa cabsan maayo markaasuu yidhi man yamnacuka minii ayaa iga kaa mancin kara maanta markaasuu nebigu yidhi allah 3 jeer weli asxaabta nebigu warka maaya qisada dagaalkaa meesha ka dhacaya nebi maxamed mooyaane asxaabtiisu war kama qabaan way hurdaan waa sida xadiisku dhigayo seeftii baa ka dhacday ninkii isla markii nebigaa seeftii qaatay nebigu markuu seeftii qaatuu ninkii qabtay ayuu nebigu asxaabtii u yeedhay soo kaca buu yidhi way soo kaceen markaasuu nebigu qisadii meesha ka dhacday min alif ilaa ya ayuu asxaabta uga warramay muxuu uga jeedaa nebigu qisadaas ina haada اkhtarada calaya sayfii wa ana naa'imun faاstayqadtuhu wa fii yadihi saltan faqaala lii alaa takhaafunii faqultu laa faqaala lii man yamnacuka minii
فقلت الله 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 فسقط السيف من يده قصة ماشا كدع علي أصحابته ما جوجن لكن نبي أوجو الرمايا محو نبي أوجو جدا قصة أوجو الرمايا يا توكل كبريا توكل اعتماد على الله مخلوق دن صدو دن يهي لا يتحرك إلا بإرادته ولا يسكن إلا بإرادته وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دعاء بعد كل السلام النبي يقول دعاء آخر جري أمتنا النبي يقول دعاء أوبري دعاء دي سوى إيمان والنفي إثبات قرآن هو إيمانيات قصص الصحابة يسير دي نبي محمد ورن إيمان كبر إساء أحد غزوة أحد هي غزوة بدر غزوة حنين أي مسد دروس بأمد النبي يقول دوبا هذا أمد فهم الدين كم دروس في هذه الغزوات بدر تضباطا قال إلايين تضباطا قال نواحدين أحد تضباطا أصحابت النبي قال إلايين انت صعيد رقنا ولا قد داوعي لما ذا غزو علماء وحير هذا من كم منفعة بدن ابن قيم الجوزي زاد المعاد وحكو شاقي غزوة أحد أيا كم منفعة بدن بويد كفائدة بدن كعبر بدن كدروس بدن كفتوحات بدن بويد كو طلبات وحلو قادي cadowgii gudaha ku jiray baa la ogaado 300 munaafiqiin isla markiiba gooni u baxday badr lama garan munaafiqiinta laakiin uhud munaafiqiinta muslimiinta ku dhaxnool baa la gartay maalinkii darsiga labaad waxa weeyaan waxa kaloo la tusay ummadda nabiga in muslimiinta inay dhintaana ay meesha ku jirto ilaahay qaarkood uu shuhada ka dhigan karo darsiga kale waxa weeyaan jamaacu nabigu qaado buurta dhiga jabal rumaat halka haddaan ka dhaqa haddaan adkaaniyo haddiina naga adkaadaba ha ka dhaqaaqina buu rasuulku yidhi dagaalkii baa bilaamay isla markiiba gaaladii waa la jebiyey khaniimadii bay gurteen muslimiintu jamaacaddii uu nebigu buurta duldhigay ayaa iskhilaaftay qayb waxay yidhaahdeen dagaalkii u dhammaadee khaniimadii xoolahan guranay na dhaadhiciya qola waxay tidhi nebigu ha dhaadhicinay buu joogay xaggoo u dhaadhacaysaa khilaaf maxaa dhacay اجتهادي ويان وخلاف اجتهادي ويان جماعتي قارنا way hadheen oo amarkii nabiga ay fuliyeen qaarna way soo dhaadhaceen isla markiiba Khalid bin Walid Akrama oo ciidanka fardaha ee mushrikiinta watay ayaa arkay ciidankii buurta dhabarjabinta ka ilaalinayay oo kala jabay isla markiiba dhabarjabin bay ku soo sameeyeen muslimiintii oo khaniimadii xoolihii guranaysa ay xagga dambe kaga yimaadeen 7 asxaabtii nabiga kamida ilaa 7 bay laayeen nabi maxamedna dhaawac baa loo geystay maalinkaas aw nusradii nabi maxamed uu dhex socdaa asxaabta Abu Bakar uu dhex socdaa Umar uu dhex socdaa Abu Bakar uu ku jiraa Usmaan uu ku jiraa mubashiriintii way ku jiraan muhaajiriintii way ku jiraan ansaartii way ku jiraan ahlul badr oo dhan baa joogta ducadood waa mustajaaba cid ilaahay uga dhawiye kama jirto maxaa looga adkaaday nasrigii maxaa looga rafacay waxaa la yidhi nasrigii waxaa looga rafacay jamaacadda nebigu uu buurta dhigay ayaa amarkii nebiga jebisay maadaama amarkii nebi maxamed aad jebiseen fa markaa nusraddii ilaahay waa niga rafacay weeyaan hal amar oo nebi maxamed ka soo fulay hadday khata ijtihaadiya ay u jebiyeen oo ilaahay nasriga uu ka rafacay ummaddaa maanta dhibaatada ku jirtay diintii ka fogaatay sidee bay nasri ilaahay ku filan inay ku hesho nebi maxamed oo jooga ayaa nasrigii laga rafacay ummadda markii amarkii nebiga ay jebiyeen waa darsi ilaa yowma alqiyaama ogaadaa lagu leeyahay آياتي محايا هيد معلم منكم من يريد أول كي تصعدون
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. أفر تاسا كدعي فشل تنازع حب الدنيا معصينا ويكون عين أمرك النبي قد يلا جبيه معصية دعدي هدي أصحابتي نبي محمد عيد إلهي يقدوا عالم كاي سنجرين أمر نبي محمد كسوفوا لي قاركود هدي اجتهادوا جبيين نبي قول لجوغا نسرق اللي قرر فعوته ضواتا إن كود انتين والنبي محمد نلقوا دعواعي أمدا ما أنت تارق الصلاة عيدة كبطي نسر إلهي سيكون فلان يسعى الله هنا فامسي فولا ليال ما هو الحل؟ حلوة معي إقامة الأمة على الدين حل كلمة جري وإن أمدا مرلبا لقود دالا ولقود استاجيا ما كان عليه النبي والصحابة أصحاب النبي محمد هي الزمن كي النبي أمدا وحي قبت إيماني الدين هذا مرلبا أمدا أصول نغطو قرقارك إلهي هالكيسي بوتاقيا قرقارك إلهي وهالكيسي ديار بو إلهي ليها قرقاركيسي لكن عدي لو قرقار يا عالم كجر المانتا قرقارك وحال الشاقي إن مؤمنين لو قرقار أيو إن الله مع الذين اتقوا معيد إلهي متقين بالله شاقين إليه هليان أوي متقينتي أوي مؤمنينتي والله يحب المحسنين بالله إليه أوي محسنينتي والله يحب الصابرين بالله إليه أوي صابرينتي إن الله مع الصابرين بالله إليه أوي صابرينتي مانتا صفات في القرآن كوي كتو الله لكن تدك الصفات كاقبي مانتا عالم كنتي جوغان فجودك دعوة ولا الوين فهمتان ولا ليال واحد دعوة اللي وقد لنا وحويان ورمر لبعض هالصون ولينه صفات الإيمانيات صفات كي اللي قموا تيسري قرقارك إلهي هي معيدة إلهي هي إمارك ترى نصرة غيبك أي اللي وقد لنا دعوة اللي وصلنا ولا يمر لبعض تاسع دعوة اللي وقد لنا خروجك أفرت البلاد يا أفرتنك ووسائل ويان والوسائل لها حكم المقاصد ولكن الهدف هو معي إحياء جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا النول هي الله قلت فلق لي ويحليه حين نبي محمد ولي من دي محول لي من دي نبي محمد دين ده ما يسترن إيمان كاملة دين ده ما يسترن دين ده ما يسترن دين دو الزمن كينا كتبت يكون ده ما يسترن تهي نلش البشرية ده وكما قنت هل كان نبي محمد دين ده وكل ده ما يسترينا ما هين كتب والله وحو كل ده ما يستري حياة الصحابة رضي الله عنهم نلش أصحاب ده دين ده كل ده ما يسترن حياة الصحابة وحياة إلهي ورالك كان نقضي ويان إلا رضي الله عنهم فلذلك ولا ما تفردي نوم الجوب فردي نوم الجوب يقولوا من نفت هذا كود دال عالم كنا وكسوقيا ساد نفت هذا كود دال نفت هذا ساد إلهي يقول والله هيد بشر كأدوية كنا ولا أد إلهي حقه وقوير إلهي ودوا إلهي تاسع إلهي إنك نو دورتي هذا الشغل أو كعنو إلهي الدعاء إنه أقبليا إلهي بينو قرقارايا حبيب النجار تضبات السنة أيو سنة بعابدها أي صدح نبا صومرتو الرسول وحيري أنو السنة بكاسنا عابدا برس يا حنون كان وانقبا الدين اللي مدقنو ميبا كدقنا هاي هذا دي دعايسان وان إسلامي هذا دي دعايسان وحنون كان إلهي يقدو القاضو أنا وان راعي بيدي وان الإسلامي وأدعيين حنوكي با إلهي كدو القاضي هروك إسلامي ويسو دافين مقالدي با إيمادين دادكي با دينتي إيمانك وقو يهدين مركاسا الله تشهدو الليلي صدح ذنن وح عصب با إلهي إيمادين حل الله يو حبيب النجار با مغلي قوم قيسي إنه تشهدين صدح رسول وكسعوا تمارك تاني من عند الله بمفسرين تودادين قارنوا عير هذا النبي عيسى صدري هلو ما جرس كو دقي والدعاء ويان ساعدة قد ساعدة نوعي كسانه الله نفهم سيو فاسوقا بيننا إن شاء الله ويمدي قرآنك هو عجيب ويان وقلبك قرآنك لو شيء قصة داس
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين سلامركي بو soo orday oradkiisi baa quraanka lagu sheegay raganimo buuxda loo marxaati kacay socodkiisi baa quraanka lagu sheegay hadalku ku hadlay quraanka ilaahay waa ku sheegay muxuu yiri yaa qawmi tulkayow ittabi'u al-mursaliin kuwa raaca wad ku daba liibaanaysaan ittabi'u man la yasalukum ajran waliba nimankan ajr iyo mushqayd niga dooni maayaan iska raaca wad ku daba hanuunaysaan iyakuna way hanuunsan yihiin muxuu u yiri baa la yiri nimankan waxa duya niga dooni maayaan lacag niga dooni maayaan muxuu yiri markay u duceeyeen ilaahay caafimaadkii uu siiyay ayuu xoolo rabay inuu siiyaa la yiri markaas ay ku yiraahdeen anagu waxba ma qaadano ilaahay dartii baan ummadda wax ugu sheegnaa dadkana xaq ilaahay baan ugu yeernaa shaqadana waa shaqo ilaahay noo doortay annaka way hanuunsan yihiin buu yidhi oo nimankan diintu wayba ka muuqataa iyaka taqwadii baa ka muuqata iimaankii baa ka muuqda daacadii baa ka muuqata cadaaladii baa ka muuqata ixsaankii baa ka muuqda noloshoodii baa diin ka muuqataa waan arkay anuguya aad iska raacood ku daba liibaanaysaan markaasay saddexdii rasuul waaba iska iloobeenoo isagii bay markaa qabteen baa la yidhi markaa bay ku yidhahdeen adiguna ma raacsan tahay wamaa liya laa acbudu aladii fataranii wa ilayhi turjacuun maxaanan u caabudayn buu yidhi ilaaha ee abuuray ee bilaabay ee xaggiisa loo noqonaayo ee makhluuq oo dhan iska abuuray kaa inaan caabudo xaq bu igu yeeshee cibaadadiisuna waa igu waajibe maxaanan u caabudayn buu yidhi ilaahaas kaasi xaggiisa igu yeedheen markaasay ku yidhahdeen diinta ka noqo kama noqonaya buu yidhi dhulkay ku aaseen baa la yidhi markaasay miishaar dul dhigeen ka noqo diintaada culimmada qaar waxay yidhahdaan maye meel dhagaxle intay dhex seexiyeen ayay dadkii magaalada ku yidhaahdeen qof walooba dhagax qaadoo ku dhifo sidaa ha ku dhintee xabiibu najaar cajiib innii idan la fii dalaalin mubiin haddaan diinta anuu aan ka laamo baadi cad iyo dalaal cad baan ku suganahay buu yihi khasaaro cad innii aamantu birabbikum fasmacuun halkaa isagoo jooga buu dacwadda fidinayaa u fiirso innii anigu aamantu waxaan rumeeyey birabbikum rabbigiina ayaa rumeeye fasmacuunii maqla buu yidhi waa markii u dambaysay naftu ay ka sii baxayso ee midida loola dul taagan yahay ayuu hadalkaa ku hadlayaa waxaa la yidhi way dileen ilaahay qur-aanka waxuu ku sheegay mar allii markay dileen isagii ilaahay wuxuu ku yidhi qiila adkhuli iljanna adigu horta jannada gal baa lagu yidhi xabiibu najaarow jannadii markuu galay ee manaasisheedii iyo karaamadii markuu arkay muxuu yidhi qaala yaa layta qawmi yaclamuun ibnu cabbaas wuxuu yidhi nasaxa qowmahu xayan wamayita isagoo nool iyo isagoo dhinsan baa ninka qoomkiisa u nasteexeeyey buu yidhi cajiib way dileen markay dileen iyakii may raaxaysan kamay dambayn ninka ay dileen waa nin daaciya waa nin dareen ummadeed leh waa nin ummadda u samafalayey waa nin ummadda u nasteexaynayey saddex rusulu u kaalmaynayey xaqa ayuu ummadda ugu yeedhayey ninkay dileen nin ciyaara ma aha waa nin ilahay agtiisa qiimo kula weeyaan waxaa la yidhi wamaa anzalnaa calaa qowmihi min bacdihi min jundin min aلsamaa wamaa kunna munziliin in kaanat ilaa sayxa jibriil calayhi salaam baa lagu yidhi waagu markuu beryey wada kacaan hal mar keliya ku qayli baa la yidhi hal mar keliya ku qayliyey qalbiga iyo maskaxdaa wada dilaacday baa la yidhi kam muslimaa maanta caalamka ku dhimanaysa oo lagu laynayaa ilaahaw noo gargaar muslimiinta duca kasti salaad walba meel kasta gaalaa laga habaarayaa miya habaarkii maanta hal nin bay dileen qoomkaasi halkii nin baa ilaahay raaciyey qoomkii oo dhan hal malaayiin muslimiina maanta la laynaya caalamka aaway ducadeennu halkay tegaysaa waa duco shuruuddii baan loo buuxin shuruuddu waa maxay dacwadda horta ka horraysa 950 sano nuux ayuu ummaddiisa qoomka ugu yeedhay qoomkiisuu diintii iimaanka ugu yeedhay markay gaalnimadii ay ku caddaatayna rabbi innii maqluubun fantasir ilaahow layga qaalib noqoy haddee toole ilaahow ii gargaar buu yidhi 950 sano dacwad hal habeenna maaragtaane duco ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر با إلهي مدمرات الإلهية صمد يدلك بي اللغفري هل قفوا قال أدويدكم هذا المالكاس فأولا لي شروطها بوحنو دعوتها نكعنو حق دعوة مركان فولنو دعادنا مستجابا نغن وحان دونا إلهي مركان السينية